الله إلي وحاتاي أسللت هاوينو إني قادو كالي ومن نرك الدنيا ذن إنك نميسو عن وعنا وناسان كلانتي هابون داودياشينا قيميga badano halkan waa Pakistan Media waxaan idin soo gudbin doonaa sheeko jacayl oo tixana noo noqon doonta waxay la magac baxday sheekadan Jamasho waxaana qoray oo qalinka u qaatay al-Ustaad Ahmed Diiriye Afrax qaybta koobaad ee sheekada ayaa ku bilaabanaysa sida tan Cabdirashiid waxa uu fadhiyaa banaanka gurigooda oo ah guri jiingad ka samaysan oo ka muuqdo dayax xooggan waa xilli aroor ah wuxuu ku cadeysanayaa meel wax yar u jirta albaabka kore ee guriga wuxuu ku fadhiyaa laan jirid weyn oo tiilay guriga hortiisa jir ahaan halkaa waa uu iska fadhiyaa ma ogiya maskax ahaan waxa uu dhex jibaaxayaa fakar aad u qoto dheer oo taabanaya dhinacyo badan oo dhanka nolosha ah Cabdirashiid waxa uu ka dhashay qoys faqiir ah oo aan haysan hanti buuran hooyadii waxay qudaar ku iibisaa suuqa qudaarta lafteedu waxay ka keentaa maalin walba suuqa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose aabihiina wax shaqo ma hayo tan iyo xilligii ay dhacday dawladii dhexe ee Soomaaliya 1991kii aabe waxa uu ahaa shaqo la'aan Cabdirashiid waxa la dhashay 7 carruur ah isaga kaliya kama soo hoos bixin hooyadii iyo aabihii 4 gabdhood iyo 3 wiil ayaa ku heliyay isaga ayaana curud u ah hooyo Xaawo oo ahayd Cabdirashiid hooyadii ayaa dhexda u xiratay sidii ay carruurteeda ka soo noloshooda qatul daruuriga ay ula tacaali lahayd waxbarashadooda dhammaantoodna qaar iskuul ayay dhigtaan qaarna dugsi quraan Cabdirashiid waxa uu wax ku soo dhex bartay nolosha nooca ah oo uga baxay dugsiga sare ilaa jaamacadda heerka koobaadna waa uu ka baxay hooyo Xaawo ayaa lahayd rajo weyn oo ah hadii wiilkeeda uu jaamacadda dhameeyo inuu wax weyn ka bedeli doono nolosha dhibta badan ee qoyska oo dhan ay ku nool yihiin balse 2 sano ayaa ka soo wareegatay xilligii uu jaamacadda dhameeyay ilaa haatanna wax shaqo ma hayo wuxuu mar walba soo toosaa subaxii isagoo niyad jabsan habeenkiina waxa uu sariirta ku qaataa waqti badan oo uu ku dul fakaro oo mar waliba ay u soo sawirmayso rajo beel iyo xaalad cakiran maadaama Cabdirashiid uu ahaa ruux aqoon leh waxa uu faraha ka qaaday dhageysiga idaacadaha maxalliga oo mar walba ka maqlo warbixino iyo warar rajo beel iyo khilaaf isjiid aan dhammaan iyo dhacdooyin naxdin la mooyee aan wax kale soo tabin waxay niyadiisu ahayd in horumar iyo hiigsi ay gaarto balse niyad jabka ka muuqda ayaa ku kalifay inuu iska dhaafo dhageysiga idaacadaha daawadayaasheena qiimiga badan waxaan inta ku soo afmeerinaa qaybtii koobaad ee sheekada la magac baxday Jamasho oo ah sheeko jacayl oo tixana oo noqon doonta toddobaad walba 2 jeer ayaanu halkan soo gelin doonaa sheekadan jacaylka waxaana qoray oo qalinka u qaatay al-Ustaad Ahmed Diiriye Afrax fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh kuna dhufo calaamadda gambaleelka si ay ku soo gaaraan qaybaha kale ee sheekada anka ishaartay haydin adiguna إلا هوري عاشقة أقل يرلي ليلي إلا هوري عاشقة أقل يرلي ليلي إلا هوري عاشقة